kala saar ciyaartaada عدهم باكو حيران جيري عفيو كسار مشا وي 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 عبد المالك موسى علدون مدحوينه ninka inaad cafido ayaan aad u codsanahay way degdeg ah waxa war farxad la ka soo yeeray xarigii muddo sida xaqdarada ah ugu xirnaa Hargeysa samafale Cabdi Maalik Muuse Culdoon Cabdi Maalik ayaa xurriyadiisa dib u helay muddo kadib haddaba siideynta Cabdi Maalik yaa ka dambeeyay xogtaas oo dhameystiran ayaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkaygan ee hadday tahay booqashadaadii u horeysay halkan subscribe saar intana daawatid ha iska yaacine mahadsanid waxaa xabsiga laga sii daayay Cabdi Maalik Muuse Culdoon ka oo in muddo ku xirnaa xabsiga Hargeysa xariga Culdoon ayaa waxaa ka dhidhiyay dad caan ah oo ay ku jiraan fanaaniin wariyaal madax iyo shacab intaba waxaa cod dheer kaga codsaday in la sii daayo Culdoon dhawaan fanaanka caanka ah ee Maxamed Saciid Bikey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan cod dheer kaga codsanayaa nin ay bulshadu jeceshahay oo xiliyadan xanuunka xabsiga ku jira oo leeyahay Cabdi Maalik Muuse Culdoon madaxweyne ninka inaad cafido ayaan aad u codsanahay waayo waa la tabay dhul badan oo waqtigan maanta taagan yahay wax ka qaban jiray waa dadka dar ilaahay u shaqeeyay way madaxweyne ninka noocaas labada ciidood iskale idilmay iyo farxadda ciidka iyo xanuunka dhibaatada badan leh dartii ninkan ugu cafi sidoo kale kuma ekeen codsiga siideynta Maxamed Saciid Bikey waxay ahayd wiigan markii ay cod dheer ku dhaheen madaxda qaramada midoobay in si shardi la'aan ah u siideyso Somaliland Cabdi Maalik Muuse Culdoon Cabdi Maalik xarigiisa ka caadoodo wax garadkiye bil cibaado weeyaane كعبسود الرحمن كنا qaylada iyo garab istaaga Cabdi Maalik muddo kadib xabsiga ayay ka sii deysay Somaliland warkaan ayayna ku farxeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed maadaama uu ahaa ruux u naxariisto kuwa taagta yar cilmi macallinku sheega caamada mid kaalmeeya in cadaalad loo ayo عقلينا قليميسو Cabdi Maalik oo hadda xurriyadiisa dib u helay ayaa la filayaa inuu hor yimaado muuqaal baahiyaha si uu uga warbixiyo xaaladiisa caafimaad oo iminka ku sugan yahay Cabdi Maalik ayaa la ciidi doona qoyskiisa farxadda ugu weyn ayaana ah intii xabsiga uu ku jiro inuu wiil u dhashay farxadii uu la qaadan lahaa qoyskiisa waxa galaaftay xabsiga ee qunfulka kula jabiyeen Culdoon ayaana hadda dareemaya micnaha ay leedahay xurriyadda waxyar ma ahan inaad muddo ka maqnaato iftiinka la kulanka ka warqabka qoyskaada iyo bulshada dhamaanba waxaan leeyahay Cabdi Maalik ku soo dhawaa xurriyadaada waayo uma aadan qalmin in xabsiga lagu dhigo waxa tahay ruux qalbiyadeena ku weyn dhabtii aad ayaan uga wada xumeen xariga Cabdi Maalik Muuse Culdoon waayo wuxuu ahaa qof wanaagsan inta uu qof wanaagsan yahay balse ma uusan helin wixii uu qalmay kala saar ciyaartaada عدهم باكو حيران جيري عفيو كسار مشا وي 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 warkan degdeg ah ayaa ahaa mid kamid ah kuwii ugu farxadda badnaa waayadan oo ay maqlaan dhagaha shacabweynaha Soomaaliyeed maadaama Culdoon xabsiga ku dhex xanuunsanayay toddobaadyo ka hor sida ay xaqiijiyeen eheladiisa oo ku booqday xabsiga wararka hordhaca ah ee aan helayno ayaa sheegaya inuu hadda yara caafimaad qabo Allah ayaan uga baryaynaa inuu siyaadiyo caafimaadkiisa fadlan daawade halkaan isha ku hay si aad ula socotid arrimihii u dambeeyay ee Cabdi Maalik Muuse Culdoon barnaamijkeena xiga ayaan ku soo qaadan doonaa markii uu hor yimaado muuqaal baahiyaha asagoona ka warbixin doona dhibaatadii uu xabsiga kala kulmay iyo cidii garabka ka siisay siideesmadiisa si ayna ku dhaafin channelka subscribe saaro oo gambaleelka furo si aad u noqotid daawadaha u horeeya waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga ku kulmayno وصاحبك سومالي دا سجاني او ادله رمضان كريم